wasaaradda maaliyadda Soomaaliya waxay maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay waxqabadka wasaaraddaasi sida warkani uu noogu soo diray wariyahayga Cabdiraxiin Caylaawe. munaasabadan lagu soo bandhigay waxqabadka wasaaradda maaliyadda ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka maaliyadda, wasiirka ganacsiga, wasiirka qorsheynta, agaasimayaasha iyo shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda iyo kooxda deegaan oo halkaas ku soo bandhigay suugaan kala duwan. agaasimayaasha kala duwan ee waaxaha wasaaradda maaliyadda ayaa munaasabada ku soo bandhigay horumarka dhaqaalaha ee dalka. ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Saleebaan Sheekh Maxamed ayaa sheegay in ujeedka shirkan uu yahay isxisaabineynayso wasaaradda inaynu inagu inta aan laynoo iman oo layna xisaabinayno nidhaahno bal horta xaggee maraynaa. sidaa daraaddeed waxaan aad mahad gaara ugu celinayaa shaqaalaha waaxda dakhliga oo aad iyo aad ugu dhabaar adeygay, hadday tahay cashuuraha beriga iyo hadday tahay kastamka. dhammaan waxay soo qabteen shaqo aad iyo aad muhiim u ah. waa qori isu dhiib ilaalada maaragtay hoggaanka ilaalada cashuuraha iyo ciidanka turbataariyada oo iyaguna qayb wax libaax ka ah. waxaa iyagana aan mahad gaara u celinayaa madaxda mashaariicda oo iyaguna shaqo fiican haya. taliyaha ilaalinta cashuuraha beriga Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa wasiirka maaliyadda ugu baaqay in la tartansiiyo canshuur bixiyaasha Soomaaliyeed. tartiib u soo kacaya adduunka aan la socon ninka canshuur bixiyaha waa ka qiimo badan yahay awalba waa nin beledgeesi heestoo kale maxkamada haddii la geynayo xataa wuxuu ku leeyahay waxbaa nooga dhima inay saas dadkeenu bartaan muxuu ahayd alla ilmo tartansiinana aada kaaga codsanaya. waxaan u mahad celinayaa ganacsatada Soomaaliyeed. wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo munaasabada ka hadlay ayaa wasaaradda maaliyadda ugu baaqay in la diiwaan geliyo ciidanka xoogga dalka, wuxuuna wasiirku sheegay in ciidanka gadoodka sameynaya ay ka dambeeyaan shakhsiyaad qaran dumis ah. maanta dawladda nabad iyo nolol ma dib dambe uma waafanayso. meel laga soo baxay sistamka dawladda socda looga joojinayo. baaris xoogana waa lagu hayaa gacmaha dawlad dumiska ee ka dambeeya ciidamada inay propagandaan idaacadaha iyo meelaha qaarkood oo ka shaqeeya wiigan inay dawladda propaganda madaxda qaranka khudbadooda propaganda. waxa weeye sida wasiirku ii sheegay aniguna aaminsanahay qof nidaamka maaliyadda ee dalkan kaga baxayo dhibaatooyinka dhaqaale iyo dayn cafiska maanta joojin karaa ma jiro. way laga waantoobay. waxaan ogahay in baaris adag ku socoto dadka riixaya ciidamada soo baxay la waraysan doono, ciidamada cabanaya la waraysan doono, idaacadaha iyo dadka socialka media boombooriya dadka lacagta siiyey la waraysan doono. lacag bay qaateen sidaasay ku boombooriyeen ay briefta. markaa waa ku ammaanaya waxaan ku noqonaya qodobkii ahaa qofka dawladda u shaqeeya xuquuqdiisa inaa siisa oo hubisa. wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo dhankiisa munaasabada ka hadlay ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay tubta horumarinta dhaqaalaha qaranka. arrinta tubaha waxa weeye wadadii loo marayay halka dalka Itoobiya magaalada tub waa garanaysa waa dariiq meel loo maro weeye dariiqna waa qaran tubna waa Soomaali tub meel lagu dhamaa meesha ku dhamaanaysa waa sanadkan aakhirkiisa iyo sanadka dambe aakhirkiisa dabadana dawladda kale inay u xigtaa ayaa halkaa kasii ambaqaadaysa. waddankani meeshuu ku jiro ee godka ay laga saaro oo halka dadku joogaan ee barxadda sare la soo saaro ayaa tuquu yihiin. barxaddaa sare waa horumar weeye, waa is-aamin weeyaan, waa nin maraysa saar weeyaan isxaafidoo sagaaji adigoo meydhan nadiif aqalka ka soo baxa waxaa ka waraya wasiirku waxa uu mahad celiyay ganacsatada Soomaaliyeed ee canshuur bixiyaasha ah. ganacsatada Soomaaliyeed ee waxa aan ka hadlayno dhan gundhigu ah ee cashuurtoodii diiday ee ka shaqeynaya in dalkani soo noqdo oo si wanaagsan soo noqdo ayaa mahad celinayaa. waxaa kaloo mahad celinaya dadka kale ee cashuuraha bixiya ee aan ashariga waa inay waxyaalaha ka bixiya ee shaqaaluhu ka mid yihiin laga jiro cashuuraha iyo wax yar qaata ayaa mahad celinayaa. wasiirka maaliyadda oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha dawladda loo sameynayo tub lagu ogaanayo shaqadooda. dadka shaqaalaha loo sameyn doono
anigoo persona warqadaas waan gudaysan waxaan qabanaya waxay noqon dhici doonta qof walba oo shaqeeyada in tub loo sameeyo oo tubtaan lagu soo xidho mushaarka markuu qofku qaadanayo la yidhaahdo adeeg bishii soo socotay maxaad qabatay oo u soo ribood gareeyo qof hoose tubtiisii weeye lagu soo xidho waxaa meesha ka baxaya markaa qofkii aan shaqeeyay. Cabdiraxiin Caylaawe, Somali Cable, Muqdisho.